subax wanaagsan ree YouTube meel kastoo dunida daafiisa joogtaan waan idin salaamay saaka quraac yar oo fuul ah ayaan rabaa inaan halkan ku dalacdo aroortii waxaan iska jeclaa ama ukun ama fuul ama waxaasna iska ama suqaar waxaasna iska karkarsadaan iska jecelahay saaka waa maalin axad ah axadiina maad aragtay waa maalin iska nasiinya ah inkastoo waxba la nasanin oo guri la iska hagaajinayo dhar la iska dhaqayo jadh la dhaqayo adeeg la aadayo laakiin anaga intaasayba nasnoo tahay waayo waqtiyada kale busy baa layo shaqo iyo iskuuliya adduun baa loo kala ordayaa ciyaalkana iskuul ay aadaan anigana shaqaan aadaa saaka waxaan rabay inaynu ka sheekaysano waxyaabaha maanta dunidan jooga maad aragtay siiba hooyooyinka maad aragtay kelida ah singalka hooyooyinka singalka waxaan kula talin lahaa in ay maanta ilmahooda ka warhayaan hadday guriga joogaan iyo hadday ka maqan yihiinba gurigoo kale inay albaabka hortiisa kamarad ku xirtaan ka warhayaan gurigooda wixii soo geliya wixii ka baxaya adduunka sidii hore maaha social mediahii maad aragtay ilmihii maad aragtay dee waxyaabo badan loo soo dhigayaa oo ilmihii maad aragtay loo yeedhanayaa oo ilmihii maad aragtay la lugoynaya haddayba ilmahaaga ilmo wanaagsan oo dee guriga kuu jooga iska ahaayeen hadda waxaa dhacday maalin dhaweyto gabadh baa maxay ahayday friend nahay ayaa waxay iga sheekeynaysay gabadheeda gabadh yar oo maaragtay siqaaneen oo dariska ah ayaa waxay tiri waxaa jirtay bay tiri gabadha yar inay hooyada shaqayska aada jirtay ilmo single childna way ahayd single child calashaan ilmo keliya way ahayd ilmahaas aroorti galabtii markay iskuulka ka timaado gurigeeda iska furan jirtay iska geli jirtay soo xiran jirtay iyaguna runtii korkay ka ilaalin jireen laba reer oo iska soo horjeeday ahaayeen waxay tiri waxaa dhacday bay tiri gabadh yareedina loo yeedhay ninbaa social media usoo galay wuxuu iskaga dhigay bay tiri wiil yar oo dee dhalinyaro ah ninkuna nin weyn oo da uu ahaa uu iskaga dhigay deedna waxays tiri malaha inta yaray hooyadaa maqan tahay baagan iska yara tag oo maad aragtay iskala soo iyaaro qofkan wuxuu yahay soo eeg bay istiri kabacdi gabadha yareed waa la qaatay sidii baa lagu qaatay inta maad aragtay meeshii ugu tagtay oo kula ballamay ayuunbaaba ayar gaadhi baaba meesha ugu diyaarsanaa gaadhigiinbaaba dalam lagu siisto lagu ritay gabadhii horaa loo qaatay waxaa la geystay gurigiisu geystay ninkii maamadii haddayba gurigii timid gurigu waa xidhan yahay inanteerna faragooniya haysatay islaantuna faragooniya way furtay waxay moodaysa inay qolkeeda iskaga jirto usually qolalkay ku jiri jirtay qolkeeda iskaga jiri jirto gabadheer may soo bixi jirin inay qolkeeda ku jirtay moodaysay waxbay iska samaysatay tv-ga iska shidatay oo iska fadhiday kolkay maqribkii gaadhay hadda guriga waxay soo gashay sida gabadhu ii sheegtay 4 galabnimo kolkay maqrib gaadhtay ayuunba waxay istirin qolkeedii fur oo bal gabadhii la hadal maxaabad ii dhiibatay ma joogto waxay istiri marka niyadeeda maba isdhihinba gabadhaada meel bay ku maqantay waxay istiri qolada dariskii la joogta gabadhii dariskii ku qarqaraacday waxay ku tiri gabadhii maydinka idiin timid ma imaanaan arkin maanta markay iskuulka ka wada yimaadeen baa noogu dambeyso halkaa ku kala leexdeen wax maxay ahayday guriga u yimid iyo waxba waxay dhaheen kamaradii reerka kalaa marka kamarad lahayadu kamarad may lahayn gabadha laakiin way iska soo horjeedeen waxay tiri bal kamaradaydan ka fiirin halkan aan kala socon jiray gabadha haddii albaabkii la istaa kamaradii fiirisay waa gabadh yareedoo sii baxaysa keligeed unbaa laga arkay oo ugu wardambeys adiga booliska waceen waxaa la yidhi xoogaha aad kasoo wareegto 24 hours waa in 24 saac kasoo wareegto hadda ma baari karna because waxaa laga yaabaa inay meelahan dhadhow joogto booliskuna waaba saas haddayna 24 saac kasoo wareegin kuumaba baarayaanba maad aragtay waxba 24 saac markii kasoo wareegtay way wacday habeenkii way seexan weyday hooyadeed because keligeed bay gabadha yar haysatay way wacday booliska sidii bay ku raadiyeen waa la raadiyey gabadhii meel ay jaan iyo cirib dhigtay waa la waayay gabadhii sidii loo raadinay loola maalintii dambe gabadhii waa lasoo qaaday ayadiyo la xoogay jirkeedii dhannaa waxaan ku iri la jarjaray dhibaato weyn loo geystay baag weyn oo iyaga agtooda ahaa unbaa meydkii lasoo dhigay xaafadii unbaa maxay ahayday maaqaana dad meesha maraya miyaa arkay
adi meeshii oo lagu xoonsan yahay oo la buuqayo la qaylinayo boolis la wacay ambalaas la wacay wax walba la wacay gabadhii markii la baadhay waaba gabadhiiba marka gabadhana markaa xaafadda dhan meesha ku xoonsanayeen ambalaaska iyo waxaan loo yeedhayay booliska iyo way maqnayd hooyadu shaqay ku maqnayd may joogin reerka kalena mabay soo bixinba may ogeyn badanaa dadkeena maad aragtay ajaanibka iyo etoobiyaanka iyo soomaalida ma soo babaxaan gaaladan iyo xanun baa wareega galbihi bas marka waxba yaan hadal kugu daalina waxaa dhacday booliskiin baa galabnimadii u yimid waxaa lagu yiri uun gabadhaadii waan helnay dhakhtarkii meydkeedii yaallaa waa kaas naxdin murugo gabadhii teleefoonadeedii waxeedii oo dhan boorsadeedii waxeedii oo dhan ninka mabuu furin baan u maleeyaa I don't know se ilaaha ka indhasaabayay boorsadeedii markii la furay ee la baadhay masajadii ninkaas ku qorqoreen wixii haddii lasii tix raacay oo ninkii la raadiyey dee taleefonkii la raadiyey taleefon jiraba maba ahaba wax feeguu samaystay buu ahaa bas adaal xaasil waa dhaweyd baa waxa la yidhi ninkii waa la helay hadda sheekada waxa kasoo wareegtay bil waa dhaweyd baa hadda la yidhi ninkii waa la helay wuxuuba noqdayba nin weyn oo da-a oo 50 jir ah ayuuba noqdayba ilmaha yarna ilmo yar oo waxay ahayd 12 jira marka walaalayaalow anaga qurbahan la iska dhibaataysan yahay oo keliya lagu yahay ilmihii waxaa la leeyahay horda iskuulkaaga markaad ka timaado gurigii tag oo soo xir marka waxaa dhacday gabadhii sidii baa lagu helay waa la aasay hooyadiina kelibay ku noqotay meeshii markii dambe way baxday wadankeedii bay iska tagtay hooyadeedii iyo walaalaheed bay iska la soo qaybsatay dhibka iyo de maad aragtay calool xumada ay muddo ku maqnayd way soo laabatay hadda marka adduunka dhibkaasaa ka socda walaalayaalo guryaha hortooda kamarada iskaga xirta ilmahan waxaad ku tiraadeen social mediaha haddii qof idin la hadloo kale ha u tegina ha la hadlina ha la mid garaynina guryihiin ayaan la idinku imanin waxyaabahaas kala dardaarmo u sheega way dhibaatadu way soo fara badatay marka maxay ahaydee wallaahi waa adduunkan dee waxaan la arkaynin ma jirto kulley wax kasta waa qadar alleh laakiin in laga taxadirana way iska fiican tahay waayo hadday guriga hortiisa kamarado ugu xidhnaan lahayd waxaa jiri lahayd markay sii baxaysoo kale way la socon lahayd ay dhehi lahayd xageed u socotaa way u sheegi lahayd way waanin lahayd waxay dhehi lahayd waxba ha bixin hadda waxaase ku dhehi lahayd saasay ku fiican tahay waxaan idin lahay ku xirta telefoonada iyo waxaas oo dhan marka insha allah ilaahay hana ilaaliyo ilaahay iska tala saarta intaasaan idin sheegayay quraacdaydi waan soo samaystay rootigaas baroonka ah shaaha yar baan soo karsaday fuulkaasaan soo dallacday rootiga madoobaan aada u jecelahay kolley runtii waa yaro qaali rootigan laakiin wuxuu ku fiican yahay maad aragtay malaha calool istaag male baruurna kuguma darayo marka iska maxay ahayday iska soo gata saliid waxaan idin leeyahay saliidda oo liifada baan anigu cuntada ku samaystaa dad badan oo le waan arkay ma fiicno saliidda ma wanaagsano in lagu kariyo waxaa fiican in korka looga daro korkana waad kaga darsan kartaa cuntadana waad ku karsan kartaa haddaad awoodo ani dhakhtar baan weydiiyo ii sheego igu yiri waad ku karsan kartaa haddaabad awoodid marka walaalayaalow kor noo qaada insha allah subscribe like comment share insha allah fuulkeena hadda uu noo soo bislaaday hadda wixii ka dambeeyay rootigan shaaxidsanaya rootiga markaan shaaxidsadaan rootiga mar walba waxaan ku jecelahay inuu shaaxid noqdo rootiga markaan shaaxidsado aan soo guranay bartaydaasaan ku cunayaa videogeeni intaas ku soo gabagaboobay maalin dhaweyd waxaan dalbaday barafuuno aan dalbaday barafuunadan waxaa fiican inaa online-ka laga dalbado haddaabad urtiisa iyo taqaantid maad aragtay urtiisa meelaha barafuunadoo kale aad kasoo carfin kartaa aad soo urin kartaa marka barafuunkaad ka heshaba urtiisa magaciisa soo qoro ha ka gadanin stoorada waa yaro qaali laakiin online-ka waa raqiis soo qoro deedna maad aragtay waad ka helaysaa online-ka inaad ka dalbatid I know mararka qaar wuxuu noqon karaa copy laakiin dee hal mar waad iska jeegare oo hadduu dee kulley way kala
way kala tahay meelaha oo maad aragtay koobiga iyo meesha oo lagu gado originaalka way kala qaalisan yihiin. marka way idinkaasaa barfuunkina wuu ii yimid hadda. waxaan kasoo qaadayaa boostada banaanka ii keeneen. insha allah videogana maad ku arki doontiin. dhuxul yar baan soo shitay markaas aroortii waxaan jecelahay guriga inaan ku shido fooxu maad aragtay wuxuu ka bixiyaa jeermiska iyo bacteriyadu guriga ka bixiyaa. runtii guriga waa iska nadiif laakiin dee way soo gashaa hawadaaba bacteria oo wadata maad aragtay xaafadaha dariskaaga wax laga yaaba inay iska xanuunsan iska juucjuucsan yihiin dadka dariiqa socda oo kale. waxa uu soo aruuriyay hawadu ay guriga soo gelisay guriga uu kibgaraya. marka laakiin markaad ku shidid foox unsiga waxba kama taro iyo barfuunka iyo fresh airka waa loo baahan yahay waa la shitaa laakiin mostly waxa si fiican uga saara bacteriyada iyo jeermiska iyo wax walba guriga waxa ka saara waa fooxa lubaanta ka saarta. marka lubaanta ku dadaala insha allah. anuu aad baan u jecelahay kolkayga dhamaataba waan soo iibsadaa caagada yar baan ku shubtaa waan kusoo dhaweystaa. marka waa idinkaasaa insha allah. wax badan baan maad aragtay kala maqnay. marka telefoonka layga soo dhexgalo laysoo wacay. marka intaasaan idin sheegayay maxaan ku idhaahdaa isla socod wanaagsan. youtube-keena hadda wax ku dhacay ma aqaana subscribe-ka hoos buu u socdaa. I don't know si waxay ka dhigantahay ma garanayo bal qofkii uu cilmi leh qaybta commentka ii soo qora. kolley waan search gareeyay bad wax saas iimu sheegin. fiidiyoyo badan waan eego waan daadaawaday ma garanayo waxay si fiican wax igu explain gareeyay waan waayay. marka haddii aad idinka maad aragtay aad u cilmi leedihiin ama aad iga caawin kartaan insha allah iigu soo qora qaybta commentka hadduu ilaahay raalli ka noqdo. marka intaasaan idin sheegayay. fooxii waan idin tusayaa haddaan leh waa kan fooxii. I like foox aad aan u jecela xitaa saliidiisa way ii taalaa oo maad aragtay wejiga iyo meelahaasaan iska marmarsadaa. weliba warshad baa samaysay saliidaas oo saliid oo wadata maad aragtay warqad iyo certificate wadata aad u fiicanta. waa yara qaali laakiin aan soo iibsadaa anigu waxaan kasoo iibsadaa meelaha health shopka aan kasoo gataa oo lagu iibiyo saliidaha caafimaadka iyo alaabta caafimaadka. saliid kaliya ma gadaan waxay gadaan waxyaabo badan oo caafimaad ay gadaan oo dhir ka samaysan. marka halkaasaan kasoo iibsadaa saliida fooxa xataa laakiin foox kama soo gata because fooxa iyaga qaali bay siiyaan. intaa yare haddaan idin tusaya malaa waxay siiyaan $50 meelahaasay siiyaan laakiin ana waxaan kasoo gataa dukaamada soomaalida iyo etoobiyaanka iyo oo ka keenay dee wadankeeni ka keenay oo asliyan kasoo gataa fooxa caadiga la shito. iyaga gaaladani bismillah way garanayaan cilmigii way u cilmi leeyihiin heltinimadiisu. intaa yare hadda miiska ii kor saaran dukaamada soomaalida iyo etoobiyaanka waxaa la siiyaa $10. iyagu laakiin waxay iga siiyeen iyagu waxay laakiin kaa siinayaan baan u jeedaa $40. marka waa idinkaasa insha allah. haddana boostadii baa timiday waan albaabka ka furay. barfuunadii aan idiin sheegayaa ii yimiday haddaan furfurayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. aan soo qaaday albaabka ii soo hordhigeen ay ii keeneen. qado yar baan halkan ku karinayay duqad hilib shiidan waxaad u taqaanidba. duqad yar baan karinayay dadna intaas kaga tago waxaan rabaa baastada hadhow maaragtay markay ciyaalka soo rawaxaan ayaan rabaa baastada inaan kariyo. kasuugiyad baan iska sii kariyaa firiishkan iska geliyaa. baastada waxaan jecelahay marka ugu dambeysa inaan kariyo baastadii kulul oo maad aragtay fresh in suugadii la kululeysto lagu darsado. baasta intaan kariyo meesha ku qalasha ama ku jilcad ama cabaar taal ma jecli. baastada waxaan jecelahay iyadoo hadda laga soo dejiyeen la cunaan jecelahay. halkan waxaan ku karinaya ukun iyo baradhe aan ku karinayay.
marka suugadii baan karinayaa. Marka suugada kariyana waxaan furfuri doonaa insha Allah barafuunadii hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waan soo qaaday hadda gudahan keenay way yaalin boksiga, laakiin waxaan rabay inaan suugada marka hore isku geegeeyo. suugada isku geegeeyo daboolo ayaan insha Allah barafuunadana furaya. marka isla socod wanaagsan insha Allah kor noo qaado walaalayaalow YouTube-ka hadduu ilaahay raalli ka noqdo. wallahi ani ma aragtay to be honest markaan YouTube duubayo aad baan u enjoy gareeyaa. tamad qasaaci waan ku shubay biyaha yar baan ku daray because ani biyo badan ma jecla suugada inaan ku daro. suugada baastada lagu cunay waxaan jeclay inay adayg noqoto. hadda waa kan bogsigii baan soo qaatay aan furfurayaa barafuunadii one by one baan rabaa inaan ururiyo oon ismayl gareeyo. marka xabad baan usoo saaraya aan furfurayaa. kulli waan isla wada urinaynaa. marka ana waxaan tegay dukaan lagu iibiyo alaabtan. xaafadan kasoo guuray baa dukaan weyn laga furay. marka dukaankaasaan tegay kulli waan soo wada uriyey. urtooda aad baan uga helay. saa darteedaan uga dalbaday. I hope inay kulligood same smile noqdaan. ay isku ur noqdaan insha Allah. kii ugu horeeyaan furayaa. ayuu baahda yimid iga caawinayo videogan u hayaa isagana u furfurayaa. nice I like an horta aad baan uga helay urtiisa. aad buu maaragtay u macaan yahay. anigu waxaan runtii jecelahay barafuunada maad aragtay degan carafta degan leh aan jecelahay kuwaas dhammaantood. kulli waan wada furay waan wada uriyey. waxaan jecelahay dhammaantood cadarba cadarku ka degan yahay oo ka macaan yahay oo light-ka yahay. cadarada strong waxaan jecelahay kuwa carabta cuudka kuwaasaan jecelahay because kuwaasi strong ha ahaadaan waa nice ay fiican yihiin. laakiin cadarada kale strong ma jecli. only cadarna haddaad qaadanaysa perfume cadar daaf Soomaali cadar baa lagu yiraahdaa. barafuunna waa af carabi. laakiin cadar iyaga dadka Soomaalida malaha waxay u yaqaaneen cadarka culus ee tinta iyo waxa la marmarsado. marka laakiin cadar barafuun dhan baa cadar la dhahaa Soomaali ahaan. saas aan u malaynaya waxaan ka wado hadda cadariga maqashaan waa perfume baan ka wada. marka waa kuwaas waxay ahaayeen 6 xabadood. subscribe like comment share insha Allah.